yaabooyin kala duwan ayaa looga hadlay hadal jeedintii Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame uu ka jeediyay dalka Jarmalka. Culimada intooda badanna waxa ay ku tilmaameen in diinta uu ka baxay oo muhiim ay tahay in uu toobad keeno. Sheekh Bashiir Axmed Salaad oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed dhankiisa waxa uu sheegay in wax wanaagsan uu sameeyay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo uu sheegay hadiiba qaladkiisa uu qirtay in ay tahay tilaabo wanaagsan. Buu ahaa mid qadowga fahmay ama si gaar ah loo leexiyay muusan ahayn si kastaba hadii hadda aad maaragtay soo jeedisay waa soo dubta kulib aa leedahay aan khalad baa dhacay khalad baa laga fahmay anu saa uma jeedin anu inta ku hadashay iyo muuqaalka soo dubtay iyo in ka cudurdaranaysid wixii ku hadashay in uu yahay war la aqbali karo. Hadalka kadib bartiisa Facebook ayuu soo dhigay muuqaal ku aadan sida uu u yiri eedeynta loo haysto iyo in xadiidka culimada qaarkood ay ku tilmaameen in uu beeniyay uu yahay mid sax ah oo dadku iyagu sida ay rabaan qofba uu fasirtay. waxaan ahay nin muslima diinta islaamka 25 sano barashadeeda iyo daalacashadeeda iyo takhasuskeeda ku jiray xadiiska la yiri waxa tiri waad inkirtay inuu ku yaalo saxiixeynka ma inkirin xadiiskaas waxaan ictiraafsanahay inuu yahay xadiis saxiixa oo ku yaala kutubta saxiixa ah oo nabigeena si saxiixa looga wariyay waxaan u aqoonsanahay sunnada nabiga saxiixa masdarka labaad ee tashriica ah haddii la iga fahmay anigu qasadkayga ma ahayn xadiiska inaan inkiro hadiise laga fahmay inaan xadiiskaas inkiraayay oo fahamkaas yimid oo siyaaqa hadalkay aniga kooxdaas waxaan u haystaa koox laga soo abaabilay filla Soomaaliya oo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo taliyaha nabadgelyada Faad Yaasiin ay soo abaabuleen وحكم كان قواسا كانوا وحكم كان عدكين كعباديستا حدنا وحير هبل أيضا شريعة الإسلام كن خلافي مناهج دين تن خلافي حرمدي ديك مسلم كهاي أنا حيرينين أي ربان إنه كرسي تنصروا حسن داهر أويس وقعنته وجرى دولة فدرالka Soomaaliya bartiisa muuqaal uu soo dhigay waxa uu ku sheegay in Cabdiraxmaan uu yahay nin diinta ka baxay balse Mr. Shakuur dhankiisa waxa uu su'aal iska weydiiyay in Xasan Daahir Aways oo uu sheegay in dad badan uu laayay isagoo diinta ku gambanaya waxa dawladda federaalka Soomaaliya ay u garab siinayso xilligan. dawladda Soomaaliya waxaan dhageystay maanta wasiirkeeda warfaafinta wuxuu yiri Xasan Daahir Aways waa nin difaacaya diinta Islaamka go'aanka Soomaalida u deeyay haddii Xasan Daahir yahay diinta difaacaya laakiin waxaan halka ka cadeynayaa in fadwadii uu iga soo saaray oo banaynta dhiigayga dawladda aysan cambaaraynin حسن داهرنا اتقانين دين الدفاعية صومالية دولة دين واتاسا نكاسي دين الدفاعية اتقانا كمانان كنو ددك إنك مدأ دولك هوسي سجلي قرح الشام ولا قصوا بلاوكيها